kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan channelkeena Cimilada Nolosha. Haddii ay tahay markii koowaad ee channelka soo booqatay, fadlan subscribe saar, fiidiyowgana commentiga iyo like ha ka ilaabin. Toddobaadkan mawduuceenu wuxuu ku saabsan yahay mushaharka laga qaato goobaha shaqada iyo dhibaatada uu leeyahay. Addoonnimada casriga ah waxaa ka mid ah ama kow ka ah shaqaalanimo. Shaqaalanimadu waa cadowga horumarka iyo hanjabinta shucuurta qofka. Inaad cid shaqaale u noqotaa waxa ay naftaada ka dhigaysaa mid dulleysan oo gebi ahaanba xidhxidhan, sababta oo ah xilliga aad doonto ma fasax qaadan kartid, firaaqana ma lihid aad danahaaga gaarka ah kusoo fushan kartid. Waxa aad tahay qof aan helin dhaqaale ku filan iyo waqti ku filan, isla markaana ay noloshiisu ku gadaaman yihiin deyn iyo faqri joogto ah. Faqriguna waa wax alla laga magan galo oo dhammaan nolosheena cadow ku ah. Haddii aad shaqaale tahay, waxa aad tahay qof aan wax qiyam ah ama go'aan ah lahayn. Waxaa lagu diri hadba wixii uu maamulkaagu rabo, iyada oo aan waxba lagaa weydiinahayn in aad raalli ku tahay iyo in kale. Ra'yigaaga iyo aragtidaada dhanka shaqadu ma aha qaar loo baahan yahay, sababtoo ah waxaad adigu tahay shaqaale. Mushaharku waa dabin qarsoon oo qofka lugta lagaga xidho si aanu wax horumar ah u samayn, isla markaana aanu waqtigiisa ugu tasarrufin. Waa jalow sida dhimbiisha ah oo bil waliba ay bisha kale kuu dhiibayso, cimrigaagana ragaadinaya. Sida badan, shaqaalaha dalkeenu ma laha xuquuq aasaasi ah oo qoran. Taas ayaana keenta in dadka loo shaqeeyayaasha ahi ay ku takri-falaan, isla markaana ay baahiyaha kaga faa'iidaystaan cidda u shaqaysa. Waxaana dhacda mararka qaarkood in shaqaalaha loogu tacaddiyo, looguna hanjabo in la eri doono, iyadoo loogu hanjabayo inay waqti dheeraad ah shaqeeyaan, haddii kalena shaqada laga caydhin doono. Mushaharku waxa uu dilaa hal-abuurnimada iyo xorriyadda qofka, waayo qofka shaqaalaha ahi kansho uma helo in uu hibadiisa si wacan u baadho, ugana midho dhaliyo, xilliga uu doonana u safro meesha uu rabo. Mushaharku waxa uu qofka ku hayaa goob keliya, waxaana uu diidaa nuuxsiga iyo horsocodka. Haddaba daawade, adigu ma waxaad tahay shaqaale? Haddii aad shaqaale tahay, miyaad ku tala jirtaa inaad ka baxdo shaqaalanimada?